أروسيدا نوغا من بدن مياديغا تينيا وعنو وحادث كديرتي فرحتي هلو بركة هويغادي بستين بركة انت دوكسيغي عقل تغمايا الى خيرك اساس كنولل iyo ayahid ugu bohanto aroskoodu dhacay wa ubax bixiyo inta doogsigii aqal tagmaya waa ila xidhkii asaaska nolol iyo ayahid ugu bohanto aroskoodu dhacay ما بدن إيدي لسوي دادي سجن شراء إسكوسو صبريو دعائيو أذكر دانكين نبالي وبدي قد أنميغو كعي وأيام بدن إيدي لسوي دادي سجن شراء إسكوسو صبريو دعائيو أذكر دانكين نبالي وبدي قد أنميغو كعي madashiinan bilan ee boqoran ee aynu ku yeeglinayno qoyska cusub ee islaamka kan isugu meherin doono dhamaantiin waxaan isku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu munaasabadeenna ayaynu iska bilaaban doonaa waxaynu ugu horreysiinaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah oo aanu yeeri doono شيخ عرب محمد آدن وإنه آخر دون آياتها القرآن الكريم الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم إلهي نقع عن فعايدها القرآن الكريم انت كدب waxaynu u guda gali doonaa soo bilaaban doonaa munaasabadeenna kulli wixii hadala iyo dardaaran way inoo dambeynayaan marka uu meherku dhacay hawsha inoo dhamaatay kadib marka waxaan ku wareejinayaa odayaasha si ay u guda galaan hadii la ka dhigo isweydiisiga bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh quraanka iyo ducadii Allah inoo aqbalo waliba waa maalintii sayyidul ayaamkii weeyaan Allah inoo aqbalo ajar iyo xasanaad Allah inaga siiyo inta ducadii baan ku kabayaa waxaan u noqonayaa dantii la isugu yimid baan u noqonayaa waxaan doonaynaa inaad nasiisaan gabadha la yiraahdo Faaisan Nuur Wacays oo aan u doonayno Hanad Cabdillaahi Xasan
inaad nasiisaan quri iyo qabiilaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين إلهي بمهدله يسوع كاني مدشن قالقة إنه كي يقليل إنه قيس كان عصب قصب بير دون قيسس كإسلام كا فرحد وين بينه تاينا إنه كسر غيب قلنا إلهي نحن كبر يا إنه ميزان كحسنات كنا قدرة أنت إنه كسر غيب كشيبة وأيو اسمها قرية إسلام كا عدة كغيب كشيء كغيب قادتها وعد وحكر تير كمية تيرر كإسلام كا ولا إلهي قيس كا إنه لسه إننا الله كرديو قيس لغو بدارو لغو رأيه تاسن إلهي كبر ينا إن فيسا نور وعيس ودون إنسان هند عبد الله الحسين وايد السيناء. جزاك الله خير. ونو قدون مهر كان ويد نور راعي إن شاء الله. واي مهر كان وايدين راعينا يا وحيل سهر ريسين شل سهر ريسي أوران مينه. markay gamciis dhaafaan sheekh meherkuun baad ku xijinaysaa halkaasi waa 15 waa suuriyadii halkaasina waa xaragadii Allahu musta'an halkaasina waa 1500 waa yarad hortii ninka xoogiisa iyo xisaabtiisaba waan kula xididnay arrinkuna idin gabadhni waa saddex geesood adeerayaal abtiyaal iyo seediyaal sida weeyaan sida saddex inay tahay saha loo ogaado ما شاء الله مهركنا والدين راعينا وحنكون رجين دونا شيخك الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيرو فردنا هدي لهيد عقد النكاح عقد مهر زوجكو وهند عبد الله حسن زوجته وفائزة نور وعيس وليغا زوجته وولالكيد عبد الرشيد نور وعيس وملكته iga fadhiya meherka ay ku heshiiyeen waa 100 gram oo dahab oo ka dhaxa ah dhamaantiin wada marxaatibaad tihiin laakiin labadii oday ee isweydiistay baan magacooda qoray Sultan Saciid Muuse iyo Xaaji Faarax Abdillaahi Macallin intayn u fadhinaa horta intaasi waa warkii oo kooban haddana waxaynu geli doonaa caqdi nikaaxi baan ridi doonaa haddii Ilaahay Cabdirashiid waxaad ii wakiilataa in aan rido nikaaxa faa'iza nuur wacays oo aan ku nikaaxo Hanad Abdillaahi Xasan meherkuna uu yahay 100 gram ii wakiilo adoo almis Yaxya meherka rid anna waan ka aqbalay wakiilka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أزوجك وأنكحك موكلتي فائزة نور وعيس بكتاب الله وسنة رسوله على مهر قدره 100 جرام من الذهب الوسط قبلت نكاح وزواج بوكيلتك فائزة نور وعيس على كتاب الله وسنة رسوله على مهر الذي ذكرت الله على ما نقول وكيل وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد مركان ردنا مهرك كلمة ديره هروان بوبنايو وتي ودادة يربان قادنا هدي لهيدمو جزاكم الله خير إلهي خير كاينا وافجيو إلهي خير كاينا وافجيو قوري خير قبل إلهي سبحانه وتعالى هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين قلبك يا قالب كما وجد عيننا جمع الله إلهي سبحانه جمعيه وناق إلهي إذن كل جمعيه خير كإلهي سبحانه إذن كل جمعيه ذرية صالحة إلهي إذن كان بإذن الله تبارك وتعالى هاند عبد الله حسن وحل باكو صارا حل زوج باكو صارا إلهي بقوامدي كسيي
hoggaankii guriga iyo garhwadeenkii ilaahay adiga ayuu kaa dhigay diinta ilaahay iyo sharciga ilaahay sida uu leeyahay faa'iza nuur wacaysku wad oo ku dhaq karaamee oo cizee oo sharafee masruufkeeda iyo mariinkeeda iyo maamulkeeda ilaahay adigu ku soo subxaanahu wa ta'ala ilaahay ha kuu yasaro insha Allah ta'ala inantayda faa'iza nuur wacaysna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala zawj saalix ilaahay kaaga dhigo gurigii aad ku qaboobilad ilaahay ha idinka dhigo zawjkaaga inaad maqashid oo aad ateecdid oo aad ka dambaysid buu ilaahay ku amrayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dardaarankii nabigaagana intaa ayuu ahaa sala allahu calayhi wasalam wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ilaahay ha barakeeyo qoyska cusub ee waxa weeyaan ka mid ah qoysaska islaamka waxaynu ugu ducaynaynaa ducadii rasuulka ilaahay isu barakeeyo ha ka dhigo reerkii isku badhaadha ee khayr badan iyo barwaaqo kala hela intaa kadib waxaan u yeedhayaa caaqil faarax oo aan kelmad siin doono mar labaad waxa weeye waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadda koowaad leh halkan inta isugu timid ee danahoodii iyo wakhtigoodii na soo siisay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa markay tahay sidii naloo qaabilay haddaannu nahay qoyskii gabadha doonayey sidii naloo qaabilay ama wax naloo siiyey qudh iyo qabiilaba aad iyo aad baannu uga mahad celinaynaa waana mid naga dhexaysay oo hore bay nooga dhexaysay tii u horraysayna ma aha tii u dambaysana ma aha insha allahu waxa weeye sidaasaa inoo xidhiidhahayd naloo siiyey u aqbalay u qaadannay tolkii jira allah idinka dhigo waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan isagana u yeedhayaa oo aan kelmad siin doonaa kolley labada dhinac dadku waa xidid iyo xigaal labadaba oo leeyahay sidaa uu sheegay caaqil faarax waxa weeyaan labada qoys waa laba qoys oo dhinac walba is ah oo dhaliidhasheeda horena xidhiidh wanaagsan uga dhexeeyey kanna kii unbuu daba socdaa anigu waxaan aad u garanayaa xagga qoyska inanta oo ah faa'iiso oo run ahaantii waa qoys aad iyo aad u qiimo badan dhinaca kalena sida ka muuqata waxaan ka filayaa oo aan rajaynayaa oo ka muuqata qoyska lamida oo wax weeyaan isaguna qiimo leh ilaahay khayr badan hay naga siiyo waxaan u yeedhayaa oo kelmad siinayaa suldaan cabdifataax siciid muuse الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بما هذا أنو ما هذنا غينا إنه كل مليء مدرسة خير كبدان له إنه نسور تجليه إنه هل كان كوي يقلنا قيس عصوب أو كسو بيراي قيسس كي إسلام كا وحان كسو دوينينا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وحان لنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير انت كبعدي سيدي عاقلك شاقي هدر ومحو هاي وسدح قيسودكي وشاقي آدي آد بانو سو دوينينا قورك كانوا كلا هنا وقوررك كو دو قيمها بدن له وايو محو هاي قورك كسي فوقي هاي واو كقيمة بدني iyadoo muxuu ahaayay inanku inankayagii yahay oo xaggana uu yahay xaggaa kalena uu yahay haddana guurka noocaasa aad baan u soo dhawaynayaa una dhiirigelinayaa waa ka ugu qiimaha badan leh maanta waxaan odhan karaa halkan waxaa ku kulmay laba qaran waayo marna waxaa kulma muxuu ahaayay laba qabiil baa kulma marna qoys baa kulma oo isagu dhexdiisa wax isweydiista كان هو محوها إلا وقرن بهالكن كل ubadka ilaahay kala siiyaan insha Allah qaran dhalay noqonayaan waayo Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa muxuu ahaayay ku kulmay guurka caynkaasina waa ka ugu wanaagsan ee ugu waxtarka badan leh
muxuu ahaayey inanta xaggaa kale kuu marta ay safaaradda noqonayso arrin bilowana muu ahayn arrinkani waa arrin horeba u soo jiray oo midhihiisii reerkan aynu iminkaba dee halkan ku dhisnay ay ka mid yihiin oo uu ka mid yahay hanad dee xidhiidhkaasa hore u jiray oo hore mid soo jireena ahaa markaa guurka noocaasana ha la badiya baan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qoyskaa ka dhigo qoys lagu badhaadho ilaahay barakeeyo ubad khayr qaba rabbi tabaaraka wa tacaala uu kala siiyo ayaan ilaahay u weydiinaynaa habliyo inamaba ilaahay ku irsaaqo ilaahay dhexdooda ka beero ubad diinta ilaahay xambaara oo kitaabka ilaahay xambaara oo ehlu dacwo ah oo dacwadda fidiya oo khayr qaba oo islaamka wax weyn ku soo kordhiya in ilaahay dhexdooda ka beero ayaan muxuu ahaayey ilaahay uga baryaynaa allaha ka dhigo qoyskii lagu reeyo ee labada reerba ku reeyaan ee lagu badhaadho allaha ka dhigo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan haddana kelmad siinaya u yeerayaa oday bixile horta qoyskaanu ducaynaynaa waan salaamay marka hore marka labaadna qoyskaanu ducaynaa barakallahu lakum wa baraka alaykum jamac bainakum bil khayr ban leh khayr barakaysan allah ka dhigo ilaahay ha ka dhigo kii ubad khayr qaba oo labada reer ba anfaca ilaahay khayrkii uu siyaa ka dhigo sidiinani waxa weeyaan soo weel ku daatay sina uma xumaado inaka reerkana dhalay uu ka guursaday faasadaha sheegteenoo waxa la aray wax inaga xun ma jiree awalba waa islahaydeen sida meesha ka muuqata qoladana waan aqaanaayo anigu wax way Faysal iyo way garanayeen dugsiga uusil kiyo laba galaaska saddexaad aan ka dhisay oo halkaas la idin hubiyana waan ka soo shaqada qaranka ka soo galay bardacadna waan ka soo galay waxa weeyaan waan wada galay Ali Xasan iyo nimankii halkaa joogay magaranaysa iyo ninkii ina salaadiyo nimana saaxiib ahaan jiray bariga maxaa salaadiyo dad badan ma ka aqaan reerkana waan isleenahay oo waxaan anu reebo ramaanahay laakiin qofoofkayga arwaaxdaydu waa Ciise Muuse marka reerkana waa reeran isleenahay reerka Allah barakeeyo waxaan leeyahay waxa weeyaan ina kun loo duceeyo weeye ina kawaan dardaaraya waxaan leeyahay wariyaa waxaad noqotaa reerabtigaana waad ka guursatay waxaad noqonaysaa gurgurshaa Soomaaliga hadaa taqaano gurgurshaa waxa weeye waa awrka weyn ee dulqaadka badan leh ee maqasha lagu raro ee waxaraha lagu dulaamino kulku reerku guurayo yani dulqaad badan iyo waxa laga awr gurgurshaa kaaga ina noqotaan rajeynaya ina tana waxaan leeyahay raas weyn noqo yani waxa weyn gabadha caruurtooda la kala garan waa kabaheega aqalkeega la isku soo haleeyo waxaan habaqluhu yiraaho hal tago aqalkeega naga hooseeyo Faysal hal tago iyadana intaas ku dardaaraya waana salaamay wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh sida dardaaranka wanaagsan iyo hadalka fiican oo noo jeediyay waxaan isaguna kelmad siinayaa waynu iska soo gabagabayn doonaa waynu dhownahay oday Cali Barre oo isaguna kelmad aan siin doono alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacu waa wixii kulba lagu gartaa leeyahay wax gaar ah maaha waxaad u mahadsan mahadana mudan dadka wanaagan soo abaabulay oo ehelka ah oo reerka dhismihiisa ka wada qayb qaatay waxaan leenahay waxaad ka doonaysaan iyo wax kale oo ka wanaagsan ba Ilaahay anaga siiyo reerkana Allah noo barakeeyo caruurtana bari kuwa lagu soo hirto labada dhinac oo xiriirka ummadda hagaajiya Allah ka dhigo dalahan iyo diintaba wax ku soo kordhiyana Allah nooga dhigo goobta gabadha bixisay waxaan leenahay goob aan gebaanin ee kolba lagu soo noqnoqdo Allah idinka dhigo oo la yiraahdo gabadhii hablahayd firkeedii iyo reerkoodii Soomaalidu hidaraac wax la yiraahayay oo lahaan jirtay waxaan leenahay gabadha dardaaran fiican halala soo dardaarmo oo dardaarankii ayeeyooyinku ay la dardaarmi jireen hablaha ay ayeeyda u yihiin wiilkana waxaan leenahay dardaaran baa la siinayaa irshaadaad ayaa loo sheegayaa shalay nin xor oo keligii iska socda oo hooyadii aabihii kaliya xaq ay ku leeyihiin maantay xaalkiisu waa ka duwan yahay wiiloo waad maqlaysaa garcasta meesha fadhida oo adiga arkaya waxaan leenahay
gabdhaha uma dambaynayso insha allah wiilkuna wiilasha uma dambaynayo waanad mahadsantihiin wajazaakum allahu khayra sheekh cali barre كل وين نسكر وانا وحن ويري أن دوني كلمة سيو أجاسمها جود وسارة جديد كيهرمرين تجدد كسمالان مدن موسى شاع محمد وسنة كلمة دعاء كنا نقول دونه أجاسمه جود سلو الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بمهدله وقوري إلهي بمهدله سكوكا كياني mid ka mid ah xafladaha ugu muhiimsan ama maxay ahayd ugu qaalisan oo ah xafladani maxay ahayd ku yeelayna heer cusub ilaahay ma ugu horeyn mahadale kulli halkan maanta hadal badan yahay waxa weeyaan weyn ducaynaa waxaan u ducaynayaa ducada rasuulka sallallahu alayhi wasallam barakallahu laka wa baraka alaykum wa jama'a bainakum bil khair ilaahay reerka ha barakeeyo haka dhigo reerkii maxay ahaydey ubad khayr qabo fadlanka hela khayr badan kala hela heerkii maxay ahaydey isku badhaadha isla markaana noqdo reer sii jira oo wax badan jira oo kala hela ubad dalkii diinta waafaca ilaahay ka dhigo reerkaas oo leenahay intaas aan soo gogweynayaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh gabagabadii baynu joognaa waxaa halkaa aan u yeedhayaa doonayaan kelmad isagana siiyo abwaankeena weyn axmed awgeedi dheeraad oo isaguna kelmad dardaarana in la odhan doono awaan soo dhawow intaa kadib waynu iska soo xiran doonaa ducadii iyo dardaarankii iyo farxaddii insha allah waa inoo bilow wixii ka dambeeya way inoo dambeynayaan insha allah الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهرين وحين دعينا عروسك وحين لنا هي دعاء رسولك إنه دعينا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير دردارا بدن ما جري هل كان فرهم الله ما دايو عن كوهي intuu baan akhrinaya maantana cadceedu ka qaataa nafluhu cimilo dooroone dhirtu ciira kuma soo baxdiya dhadiya ceeryaane marka dirirka cawleeda cayntu bilicdaaye carfi ma laha caanuhu haddaan dhiilka loo culine cad kastaba cad baa lagu nashiray caalamkoo idile naftu inay naf kala caashaqdaa caadil soo rogaye aqalkii ka caagani haween waa cid loo kale cadrad loo hanweyn yahay haddii caawa lagu hooyey alla magane waa cuudgasiir loo calool qabee caleemaanu saarniyo cigaal qurux la ciiraya ubax caynba cayn iyo cagaa reeska ka cabbaaya hambalyada caruuskiyo tahaniyad cuura naga hooya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعيي أو وليبا محيطولي تايدا واسك جعبر في صوماليا من إلهي بقارة إلهي وسيي جزاكم الله خير أورتا انت نود الدعاء سنين هندير هند وما انت عروسة يا به وهالك نقد دقيسنا يا هو يدي ويدنا هالك نقد دقينسه waa dad aanu wada joognay imika dhowr iyo 30 sano ka hor aanu Helsinki wada joognay way oonu isku masaajid ahayn masaajidkii raabida la oran jiray masjid raabida islaamiya aabay inaan kana bihi ilaahay caafimaad taam ah inoo siiyo biidnillaahi tawaaragina la aasaasay dhidib kale noola taagay hoo iyo hiil kale nala joogay masaajidkii ugu horeeyay Helsinki maxaa laga aasaaso inaan ka yar malcaamad baan u dhigi jiray isagoo caruur ah saas oo kale isaga ma ahine walaalihiya ka waaweyn oo idil hooyadiina waxay ahayd dad aanu saaxiib lillaahiya oo diinta ilaahayna ku walaalownay ay ahaayeen marka maanta waxaanu ku joognaa wafdi dhan oo Helsinki team dhan oo Helsinki aanu maanta ku nimido waanu soo galbinayeen hanad waanu soo galbinay loo kala hadhi maayo ayaanu maxay tolaniri marka faa'iidana oo inantaydiyadna ah waxaan leeyahay bishaaraysa adeer qoys aan garanayo dad aan garanayo
oo duntooda iyo wanaagoodaba aan garanayo ayuu ilaahay qadar iyo nasiib ilaahay inooga dhigay ilaahay khayrka iyo ducadii halkaa ka dhacday ilaahay inoo aqbal allahumma rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم ربنا توفنا مع الأبرار آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت إلهو قريقا أنو إرقاذا كنهي أنو مرخاتي كنهي قري خير قبا إلهو نوغردك إلهو يو تفتا يدا يهذا الكي الدعاء إلهو نو أقبل ومان خير قبته إلهو يو قريقا كفرح لهايين هاند يريركيس فائزة يددك يدوب إلهي نوغردك يا رب العالمين نولك إلهي نبض وحي نوغردك ودنك إلهي نبض هاي نوغردك تفرارق الله هاي نغا سارو شحشوحا iyo hugufka socda ilaahay haynaga qaboojiyo roobka allah inoo furo barwaaqadiisa allah hayna siiyo ilaahay abaarta haynaga soo jabiyo uurkeena iyo quluubteena ilaahay ha isku keeno meel allah la meeshii dhiig musliin lagu daadinaya qaldan allah ka qabto koonfurna ilaahay waa u ducaynana waxaan leenahay balaayada ka taagan ilaahay ha ka qabto ilaahay dawladnimadoodana ha u adkeeyo midnimadoodana allah ha sugo taayadana allah ha sugo dad walaalaana allah haynaga dhigo wasalli allahumma wasallim wabaarak ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam jaakum allah khair inta dugsigii aqal tagmayo waa ila xidhkii asaaska nolol iyo ay ahayd ugu bohanto arooskoodu dhacay waa ubax bixiyo inta dugsigii aqal tagmayo waa ila xidhkii asaaska nolol iyo ay ahayd ugu bohanto arooskoodu dhacay badan idii la sugay dad isagan jira isku soo sabriyo ducaayo adka dankiina balay oo ubadigood admigu kacay wa ayaama badan idii la sugay dad isagan jira isku soo sabriyo ducaayo adka dankiina balay oo ubadigood admigu kacay حمودي يا هندا يدين كيسانته